weli ma isweydiisay maxay dadka Itoobiyaanka ahi u cunaan hilibka cayriin iyagoo heli kara hilib bisil jilicsan dhadhan ahaanna in badan ka macaan hilibka cayriin ma soo ogtahay Soomaalidu in ay ku kaliftay kana dambeysay sababteedana lahayd in ay Itoobiyaanku cunaan hilibka cayriin badi qowmiyadaha kala duwan ee ku nool Itoobiya waxay cunaan hilibka cayriin haddaba shakada ka dambeysa cunista hilibka cayriin ee Itoobiyaanku waa mid ku lug leh dagaalada ay dadka Itoobiya ay la galeen Soomaalida sida dagaalka dhex mara boqortooyada Xabashida ee Abyssinia ee uu hogaaminayeen Tigray Amhara iyo Xabashida iyo saldanada Adal oo ay xorunteeda ahayd Harar oo hogaaminayay iyaduna Imaam Axmed Gurey dagaalkan weyn kadibna Soomaalidu waxay Itoobiyaan ku kalifeen in ay cunaan hilibka cayriin sababta dagaalkan weyn ayaa ahayd in saldanada Adal ay Soomaalidu xukumisay ay markaas doonisay dhul balaaris weyn isla markaana ay tirtirto meeshana ka saarto boqortooyada Xabashida kana dhigto mid iyada hoos timaada haddaba si guud dagaalka markii la galayo qofku waxa uu baahan yahay awood iyo energy dheeri ah iyo caafimaad qab jir ahaaneed iyo mid maskax ahaaneedba badanaa ciidanku dagaalka marka uu galayo caloosha ayaa loo soo buuxiyaa lana siiyaa cunto waqti ka waqti hayn karta askariga maadaama badi aan la qiyaas karin inta saacadood ee dagaalkaas soconayo haddaba cuntada ugu habboon ee marka la siin karo askariga waa hilibka si waqti dheer askarigu gaajo u dareemin dagaalkana u sii wadan karo Soomaaliduna dagaalada iyo safarada badanaa hilib shiilan oo muddo ku dhawaad bil hayn kara ay sahay ahaan u isticmaali jireen una qaadan jireen maadaama xoolo dhaqato Soomaalidu ahayd taasina waxay sababtay in askariga Soomaaliga ahi uusan gaajo ka walwalin dagaal kasta uu ku jiro iyo safar kasta uu yahay Itoobiyaanku si kaartadaasi ma aqoon oo hilibka iyo cashada habeenkii markii dagaalka ay ka soo laabtaan ay karsan jireen sidaasna ciidankii Soomaalidu ee uu xukumayay Axmed Gurey ay ugu faa'iideysteen fursadan oo ahayd markii ciidanka Itoobiyaanku ay karsanayaan cuntadaasi waxay dhali jirtay qiiq iyo dab fara badan taas oo meel dheer laga arki jiray waxayna ciidanka Axmed Gurey ee Soomaalidu u sahashay arintani in weerar gaadna ah iyo kuwa toos ahba ay ku soo qaadi jireen ciidanka Itoobiyaanka ahaa ee markaas karsanayay cashadooda haddaba berigi dambe ay Amxaarada iyo Tigrayga kaarta ah waxay keeneen in neefka marka la qalo aan la karinba dabba la saarin la iskuna hawlin ee sidiisa lagu cuno hilibkiisa basbaas kaliya la marinaya hilibka sidiisa lagu cunaya xeeladan cusub oo ahayd in hilibka la karin dabna la shidin hilibka cayriin sidiisa lagu cuno ayaa ka dhigtay in khasaarihii dagaalka ee habeenimada ka soo gaari jiray ciidanka Amxaaradu ay yaraato maadaama aan qiiqa dabka la arkeen markaas taasina waa sababtii ay ula qabsadeen cunista hilibka cayriin si maalinle ah tanina dadka Itoobiya ku nool ayaa markii dambe waxay u noqotay dhaqan jiilba jiilka ka dambeeya